nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino dulmidiido dulmi doonaan aragne dulmidiido dulmi doonees ku noqon war saas maahan xalka diido xilka doonaan aragnaye xilka doonow xalka diid ha isku noqon war sidaa ma ahane madax doono madax diidaan aragne madax doono madax diid ha isku noqon waraysta sidaasi maahana waxay tahay musuq diido musuq doonaan aragne musuq diido musuq doon ha isku noqon aryaadaha saas maahina dhegeysta dadka doonow dadki laayaan aragne dadka doonow dadki laysa isku noqon war saas maayinku ku dheelen sharci doonow sharci diidaan aragneye sharci doonow sharci diid ha isku noqon war saas maahina haysto waxay ahayd qarax diidow qarax daayaan aragne qarax diidow qarax days ha isku noqon war maanta waxa la wixii filim Soomaaliya ka jiri ayaad la xasaarteen ilaahay ay ka aqbalo warnimada waxaan maqli jiray warkii hore war soo dhaaf oo waran boodka kuma jiro aada saaqna wuxuu dhigi jiray galmudug waxa lagu yaqaanaa dooni mayno maanta warkaas waa beenooma xildhibaanadii galmudug ayagoo udbahoodii dhigahoodii wata ayay isxilqaan ka qayb qaateen waxayna yidhaahdeen waxaan ka jawaabnay baaqi madaxweynaha Soomaaliya oo dhul dheer baa uga imaanay dhul dheer war maxaa soo diray ama ka soo dhunteen war xaafis xabad joojin baa jirto irmaahana shaqo joojina jirto kuma dhihin war nimayo xildhibaanada galmudug oo isxilqaan ka qayb qaatay macadaalay ka yimaadeen mise dhuusa mareeb war labadu waa galmuduge ha ku mashquulin meesha doonaa ka yimaadeen eedigi sagsaari ba guraasan wir lamadin leesheehe wir aryaadaha waxaa la yiri how mihi la raabo meel kaloon la rabina ku reeda tal mihi la raabo meel kaloon la rabina ku reeda tal haye war waxaa la yiri nin la rabaa horeen badana amba reeda waa ka rogee war ayar muuse laxanka farxiifiski ma ku saartay war nimayo madaxweynaha Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga oo fadhiya baa la yiri wuxuuna la shariyaa baa la yiri taliyaasha ciidamada mardowna waxaa loo malaynayaa duulaan culus inuu dhaco yaa ma bilowda mugi khilaaf dhaca madaxweynuhu gaashaandhigga aadi jiriye war 8 February soo dhow war nimayo anu 12 xal oo dhan gabay baan u soo jeeday minaad xalayoo dhan qaan ku haysa xaatirihe waxaan idhi 4 sano xilkii loo ballamay inuu dhammaanayo oo mucaarad lagu soo salliday ku tirtirinaya markay kala bargaartuu qofkiisii naxnaxayay kaambeynka xiga waa inuu rag u diyaarshaye maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay warnimada Axmed Madoobe waa tuu yiri dawladda xiriirkan u jarna aga war magacyada madaxweynaha dhanba waad ka tagtay al-Sayyid al-Sheikh al-Islam warnaga daa warkaan naga dhaxgelina waxaan maqli jiray ilkaabee soosay ka xiriiraan wasiirkii maaliyadda Jubbaland Cabdirashiid Jire Qalinle oon xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhamaanayn baa la arkay war xildhibaanadii xafiis alqaamayaba waa la arkay war waara xildhibaanadiisu musuqmaasuq ay ku eedeeyeen musuqmaasuq naftirkiisa musuqmaasuq ku eedayha aniguna war lafta gareen baa halka uu masuur u yimid wariya walba ko galdan lan irikii goori hoos ma kii jiidaw boowe Puntland madaxweyne Dani wasiiradii xulidoodii ku mashquulsan yahay dad muhiim ah ayuu raadinayaa war Cabdulle kaas ma ku jira waxaan idin anigu shacab ruux dambiile iska daba lugeeye qabiil lagu dagaalaa haddii uu daraa jiray maanta dawladnimo iyo qaran daaficiisaan u diyaar garowno danteennii ogaanay ka daadagaysaa nin walba maanta dantiisa helo qaran baan daafacaya ayuu ku marmarsiyoodaa dadka kalena qaran dumis buu ku eedayaa warka looma dhama horta dambiiluhu waa kaay war waxaan maqla talyaaniga in lagu xiray wiil Soomaali oo dadka tahriibi jiray waxaana lagu xukumay xabsi daa'im war odagaan waagu yaraa uu qadcaba kowdhaa warkiisuna qabad ma leh waryaada talyaaniga laftiisa in la soo xiray astaayila sababtoo ah meesha dhabo dadka u tahriiban waa asaga midda kale wiilku wixii uu tahriibiyo ka daba tahriibaya talyaaniga xaa ku dhaco sidaas wiilku ugu galay warnimaya war ana geeganka farahnay hadheegi
weydii mayla aray moota lama lugoodlay walaagii wadadii dhan wal aruuriyo ciidan halan magacaabya la eri war may an sabab ee madian erina yeela dadka la kadhamaayo hali eri ana reed may liyaabsana too gararafley too ka kooyo hayawaan ko hido haye dadna madilne maylan haysa maskiin maskil fuulo leewa lama lugoodlay maskiin horta mad saaqo mu kastaxaad wala xaan dheegay u tira dhagaha laga siibe warnimayo wixii laba lugood la hadii la xirayo aniguna laba lugood aan leeyahay ama la igu dara war inoma toor gararafka oo dhaha erwu war xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa uu yiraahday dambiyada dhacaya waxa lagu geystay waxa ugu badan hubka ay haystaan ciidanka dawladda war xeer ilaaliyaha maqadu cabimaana kasta qaraxyada dhacay hubkan dadka lagu dilay ma ciidamada dawladda askale warnimayo aanu mar horaan iri hubka ciidamada dawladdu haystaan shacabka lagu difaaco haddaan lagu difaacayna yaan lagu dilin war shalay oo u dambaysay oo ya xanuunsan oo 8 caruur haysto istaal laga soo qaado mooto bajaaj saaran isgoyska howlwadaaga askar dawladdu ku dishay war maanta ay ahayd markii wadajir ay bajaajla ku dilayeen ciidamada dawladda maadin hore eedan kurumaytan widay may ara jirtaan ka saase aniga ilmahayga geel ku marroogsan garyan dhabuur baa eber ka dhigtay aryaadaha gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yiri dadka jidadka dhisahaya iyo burcad badeedu waa isku mid waraana jisla dhisaawatay dambi tahay gudoomiyaha laftiisu meeqa wadu dhisay warnimada waxa la yiri lug adoo laga rudahayo bahalku soo ruugay oo taaka rogi waayo ruuxu ka dhacayo dhibaatada mid kula sii rabiyo inaad ku sii raagto roonaanna ku muujiyo rooraya iman aryaa waxaas ma qaar waxa la yiri ma jaabe saameel kaalay kamuulax leeyihiin wareer abeesa maahan afka u dhace masaxagalay baa liiraa gorbu aana shabaab cirka looga soo dhaca leeyri waxaana kamid ah Amir Yaman ah wareer Yaman ayada dagaal ka socdaa haduu dagaal rabo ayada muu ka dirir muxuu naga soo doonay dabka ku dhace war Amirka bidaar buu leeyahay Yaman qof bidaar leh lagama ogol inuu ka dagaalamo aryaadaha anagu waa yaabanahay sujaacad arkayo in yatima ka soo baxeen shalaysaaya xay tahay war Axmed Saciid oo foodaysta miyaad arkin wareer dadka bidaarta leh waa tii naafada lagu daray marka nimankaas waxa dastuuriya bay iska lumiyeen yaa tibay ka doorteen xay iska dhunsheen hadda sujaacu koofida ma ku seexanaya abadan madajay gaawaya siifide wariyaha xildhibaanada madaxa dhalaalay meesha may tagaan waraadaha markii geel loo heestaa goroyo heestaane lagu kala wada nimayow bixi mayna niyow ilaahay haydan arkay